وكما دغاليهن كايتوبيا مانتا كula shirayso Tanzania جال مارو ومجلس دبته ويهاي كومسا دربسا ودغاليهن إن بدن هجامينيي urur hubaysan oo ka jira gudaha Ethiopia isla markaana ay leeyihiin oromada xornimada doonka ah waxa uu muddo dheer ahaa kan loogu raadinta badan yahay xilliganna Ethiopia waxa ay rabtaa in ay wada hadal ku soo xirageliso sanadkii 2003 ayaa uu bilaabay in uu ka hor yimaado taliskii TPLF oo xilligaasi hayay talada dalka Ethiopia جال مارو xilligaasi waxa uu ahaa arday ku jira sanadka koobaad oo cilmiga maareynta ka barta jaamacadda Addis Ababa dhowr jeer ayaa lagu xiray gudaha dalka Ethiopia kadib markii lagu ogaaday in uu ka mid yahay hogaamiyayaasha urur ay ardayda jaamacaduhu leeyihiin oo loo oran jiray kacdoonka diidmada dulmiga ama waxa afka Oromada lagu yiraahdo Finchilla Dida Gabruma qaybo noloshiisa kamid ah waxa uu ku qaatay dalalka Uganda iyo Eritrea isagoo xilligaasi ka baxsaday TPLF waxa uu qayb ka noqday jabhadda xoreynta Oromada isbedelkii siyaasadeed ee ka dhacay Ethiopia ee lagu doortay ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Abiy Ahmed oo ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee Oromo ah ee xilkani qabta waxa kumsa dirriba iyo kooxdiisa Ola ay go'aansadeen in ay wali duurka ku sii jiraan iyaga oo tabanaya in isbedelka siyaasadeed ee Ethiopia ka dhacay aanu ka jawaabin weydiimaha ay Oromadu qabto laga soo bilaabo sanadkii 2018 magaca Jal Maro waxa uu noqday hogaamiye ka fog saxaafadda noocyadeeda kala duwan oo ay yar tahay muuqaalada iyo sawirrada laga helo ururka Ola ee uu hogaamiyaha u yahayna waxa lagu daray xilligaasi liiska argagixisada toddobaadkan ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu markii ugu horeysay shaaciyay in uu wada hadal la furi doono jabhadda xoreynta Oromada warbixintan waxaynu ku eegi doonaa shakhsiyaadka labada dhinac ku matali doona wada hadallada maanta ka furmaya magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxyaabaha laga wada hadli doono iyo xoogagga shisheeye ee wada xaajoodka qaybta ka ah ilaa hadda inta la xaqiijiyay dawladda Ethiopia waxa wada hadaladani ku matalaya ambassador Ridwan Hussein Dr. Gideon Tamatios Kafialo Asrat Demisu Amanu iyo Bonsa Unatu sida ay shaacisay BBC-da qaybteeda ku hadasha afxabashiga waxa wada hadalada dawladda Ethiopia iyo jabhadda Oromada qayb ka noqon doona wadamo shisheeye oo ay ka mid yihiin dalka Sweden Norway Kenya iyo diblomaasiyiin ka socda Mareykanka iyo midowga Yurub dhinaca jabhadda Oromada waxa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shakhsiyaad aad uga agdhow hogaamiyaha Oromada ee kumsa dirriba ama Jal Maro loo yaqaano kuwaasi oo wada hadalka ku matali doona geestooda ilaa hadda ma cadda waxyaabaha miiska u saaran ee labada dhinac ay la shir iman doonaan laakiin waxa la filayaa madmadow ama shaki soo kala dhex gala labada dhinac in uu ka dhigi doono wada hadalka mid sii jiitama